kulanti wacan akhyaar ku soo dhawaada channelka Maxamuud Cabdi iyo wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta oo aan kugu soo koobayo wax ka yar 2 daqiiqo. Magacaygu waa Maxamuud Cabdi Saciid. Kooxda Manchester City ayaa doonaysa inay bisha January la soo wareegto ciyaaryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane. Kooxaha PSG iyo Real Madrid ayaa xiiseynaya ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Paul Pogba. Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay in ciyaaryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappe uu imaan doono kooxda Real Madrid. Kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka kooxda Manchester City ee Raheem Sterling. Tababaraha xulka qaranka dalka Talyaaniga Roberto Mancini ayaa goolhayaha kooxda PSG ee Donnarumma ku tilmaamay goolhayaha ugu fiican ee adduunka. Kooxda Man City ayaa doonaysa ciyaaryahanka da'yarka ee kooxda Barcelona Nicolas Gonzalez. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa qarka u saaran in shaqada laga cayriyo. Kooxaha Bayern Munich iyo Dortmund ayaa u kala tartamaya ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee Timo Werner. Maamulka kooxda Barcelona ayaa doonaya inay Xavi Hernandez u magacaabaan tababaraha da'yarta Barcelona. Kooxda Real Madrid ayaa xiiseynaysa ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Villarreal ee Pau Torres. Ugu dambeyntii tababaraha kooxda Liverpool ee Klopp ayaa ammaan ku dhacay ciyaaryahanka Mohamed Salah kadib markii uu gool qurux badan uu ka dhaliyay kooxda Manchester City.